بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد. عن ابن عباس عبد الله بن عباس وحلق وري رضي الله عنهما يسقي أبيه برب رالها كالنقده قال إنه ابن عباس marka saxaabiga iyo waalidkiisuba ay ahaayeen saxaabo ama dad mu'miniin ayaa radiyallahu anhuma labadiiba loo celinaya hadii kale anhu baa loo oran lahaa hadii abi aanu de islaam hayna ma saxaabi. قال وحوري ابن عباس إن وفد عبد القيس وفتيسو لما أتوا مركي ويمادين النبي صلى الله عليه وسلم قال وحو النبي يدي من وأي القوم قلدني وأيه أو من وأي الوفد وفتقني مركي نكي عبد القيس لورنشري وفتقيسو أي ويمادين وحوري قلدني وأيه أما وفتقني وأي رسولك كيري صلى الله عليه وسلم. marka Abdul Qais waa jilib reer Rabiica kamida qaalu waxay yiraahdeen Rabiicatu reer Rabiicaanu nahay qaala wuxuu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wa sallam marhaban soo dhawaada bil qawmi yahow aw bil wafdi ama wafdi yahow ghayra khazaaya kuwa dulaysan ghayrkood xaal aatihiin oo aydan dulaysnayn ولا نداما كوا قوم مونينا غير كود حال آتيهين أو أيدان مروغيسنين مركا مرحبا أي سادفتم مكانا رحبا معناها واحد صوها ليشان ميل بلاران وواسعو ليدن كسو دوين أي سو دوا دويان معنو فقالوا دبيد وحيد يا رسول الله رسولك الله إنا نقول لا نستطيع مكرين أن نأتيك إن نكون نمادنو إلا في الشهر بشن الحرام حرمد لمويانه وبيننا أنك إيا وبينك أدقنا وحي نودحي هذا كان الحي قبيلك ومن كفار مضارا نمن كرهم مضار لإرادة قبيلة قالدو دي كمده marka fi shahr al harami laba macnaba culimadu waa ku macneeyeen oo in looga jeedo fi shahr al harami shahrigu waa mufrado bisha xurmada leh bil ay si gaar ah reer mudar u xurmeyn jireen oo rajab ah wayado ashhurul hurumki kamida rajab ayay si gaar ah u si xurmeyn jireen iyo in ashani ay jinsiyad tahay oo fi shahr al harami ay al ashhur al hurum bilaha xurmada loo dhan looga jeedo oo rajab iyo saddexdii kale dul qacda iyo dul xijja iyo muharram ashhurul hurumna waxa loo yiri de waxa laga xarimay oo loo diiday dhexdooda in la dagaalamo ama ay isdulmiyaan oo dulmiguna guud ahaan isagoo bil walba muharram ah ayaa xurmadiisu si culus tahay ashhurul hurumka dhexdooda marka uu dhaco waxay yiraahdeen marka annaka iyo adigana nabi allah gaaladan reer mudara inoo dhaxayso oo kuma soo gaari karo oo de dagaal iyo dib baa naga hor imanaya famurna na amar bi amrin amarka oo faslin ay fasilin wax kala saaraya oo fasligu waa bimacna fasil ka adlin bimacna aadil marka rasuulkii allah waxaad nafartaa amar wax kala soocayo wax kala saarayo oo cad amarkaasoo nukhbiru aanu ugu warrano markaa bihi amarkaasi man cidda waraa'ana naga dambaysay gadaashaya ahaatay oo wanadkhulu aanu ku gallo bihi amarka aljannata jannada aanu ku gallo marka loo dabdiyo rafcada waa nacti faslinta
ayaa jumlada nukhbiru lagu sifaynayaa oo jumalka iyo waxyaabaha shabaha nakira markay daba dhacaan gaaliban waa laga sifeeyaa macaariftana waa laga xaaleeyaa laakiin haddii la jasmiyo waxay noqonaysaa jawaabul amr amarkaa famurnaa jawaabkiisii oo famurnaa na amar biamrin amar amarka oo faslin ay faasilin wax kala saaraya na amar nukhbir markaa aanu ugu warranna waa jawaabkii murnaada bihi amarkaasi man waraa'anaa cidda naga dambaysa aanu ugu warranno nu gaadhsiina oo wanadkhul jawaabkaa majzuumkaa ku cadafo aanu ku galle bihi amarkaasi aljannata jannada wasaaluhu waxay weydiiyeen can ilashribati waxyaabihii la cabayey xukumkooda min xaysu alxalaali waalxaraam maxaa bannaan maxaase aan bannaanayn ayay weydiiyeen fa amarahum dabeed wuxuu amray biarbacin afar wanahaahum wuxuu u diiday can arbacin afarna waa u diiday amarahum wuxuu amray biliimaani rumayn billaahi alla la rumeeyo waxdahu ay munfaridan xaal uu yahay keligii oo xaaladu jaamid ma noqotee mushtaq baa lagu awilaa waxdahu ay munfaridan qaala waxa uu markaa ku yidhi atadruuna ma garanaysaan mal iimaanu iimaan wuxuu yahay rumayn billaahi alla la rumeeyo waxdahu ay munfaridan xaal uu yahay keligii qaaluu waxay yidhahdeen allahu alla iyo warasuulu rasuulkiisa ayaa aclamuu ogaal badan qaala waxa uu rasuulku yidhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah يعني أي هو إيمان كاسي شهادة أن لا إله إلا الله قرس لقروي إلى حق لقو عابدا إنا نشرين ألا موياني وأن محمد النبي محمد رسول الله رسولك ألا إنو يهي إن لقره وشهادتينك رسالة دي وحدانية دي وإقام الصلاة صلاة أوغد دوي وإيتاء الزكاة زكاة سينتي دا أولا سيعد متيستي أما بحنتي زكاة وصيام رمضان إيا بشر رمضان سون كيدا وي إيا وأن تعطوا إن أتكب حسان وي من المغنم وحي لسو غنيمة يستي غنيمة دي الخمس شن ميلوض وميل إن أكب حسان وغنيمة دي مركا شن لو قيبيو أفر وحقادن إيا مجاهدين تي غانمين تاهيد هالك سوهر أيا شن تالوسي قيبين أيا sida aayadii suuratul anfaal ba ku cadayd marka waa khumusul khumus baa la yiraahdaa oo khumusul khumus khumuskii hore hal meelaadkii ka soo hadhay ayaa shan loo sii qaybinaya wanahaahum waxa uu diiday nabigu can arbacin afarna waa u diiday alxantami ay can ilxantami jalxadihi ama jalxadii waa u diiday iyo wadubaayi ubadii ama bocorka iyo wannaqiiri kii laga qoray jiridda geetimireedka iyo walmusafati kii daamurka dusha laga mariyey warubamaa qaala inuu yidhi ayaa la arkaa almuqayari kii waxa weeyaan daamurka nabaadka qaarka la yidhaahdo dusha laga mariyey oo daamurka ah wa qaala waxa uu yihi rasuulku ixfaduuhunna markaa warubamaa qaala almuqayari dee waa shakun min arraawi ma almusafat buu yidhi rasuulku mise almuqayar ayuu kala garan waayey marka isagoo taxari iyo inuu naqliga waxa uu soo naqlinayo ku dadaalaya inaanu waxba ka doorin ama ka bedelin buu labadiiba xusay oo yidhi makaa mise kaa kala garan maayo laakiin labada waa miduun almuqayarina waa un almusafati kaa daamurka dusha laga mariyey wa qaala waxa uu yidhi ixfaduuhunna xafida arrimahaas ma'muuraadka iyo manhiyaadkaaba oo wixii laydin faray ee awaamirta qaata wixii laydiin diiday iyo nawaahidana ka taga wa akhbiruu u warrama bihinna arrimahaasi man cidda waraa'akum idinka dambaysana u warrama oo dee gaadhsiiya xadiidka nebigu sala allahu calayhi wasalam markii ay weydiiyeen ashribada afarna waa amri afarna waa u diiday oo yacni sideeddaa arrimood ee kala duwan ayaa uu u sheegay waxa ugu horeeyuu amray yacni waxaan u jeedaa uu uga warramay ama amaruu ku siiyey iimaankii iyo waxyaabihii waxa weeyaan iimaanka lagu fasirayey oo markuu iimaanka amray
dee iimaanka iyo midhihiisa iyo waxyaabihii lagu qeexayay ayuu u faahfaahiyo iimaanku waa caynka iyo caynka iyo caynkaasuu yidhi xadiidkan wafdu cabdilqays waxaa lagu fasiray iimaanka acmaashii jawaarixda oo marka tawxiidka laga yimaado ugu horeeyo oo dee caqiidadii qalbiga uguba horeeyo isagu asalkii iyo asaaskii ah waxa kale ka dambeeya ee la tilmaamay waa acmaashii muuqatay ee jawaarixda laga sameynayay soomkii iyo salaadii iyo zakadii iyo xajkii laguma sheegin oo arkaanul islaam al-khamsa kamid ahaa waxa la yidhi markaa dee waxay ahayd intaan la faral yeelin oo sharciyadiisu aanay soo degin laakiin waxaa ku shana khanaayimkii in khumuska laga bixiyo xadiidkan haddaba iimaankii waxaa lagu fasiray acmaalu ljawaarix aldaahira ama mabaanidii afarta ahayd ee islaamka mabaanida ugu waaweyn xadiidkii jibriil ee dheeraa ee macruufka ku ahaa xadiidu jibriil cumar ibnu khataabna uu warinayeyna ee jibriil intuu rasuulka u yimid sala allahu calayhi wasalam su-aalaha uu weydiinayey jawaabaha uu siiyana uu qirayey uu u sugayey ee lagu tilmaamay maraatibul islaam maraatibta islaamka ee 12 ah ama maraatibuddiin martabadaha diintu maraatibta ay ka koobantahay 12 ah martabatul islaam martabatul iimaan martabatul ihsaan xadiidka dheerna iimaanka waxaa lagu fasiray acmaasha baatinka ee qarsoon iyo i'tiqaadkii qalbiga oo an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aakhir وبالقدر خيره وشره يعني أركانتي إيمانك يا أعماشي باطن كلا اعتقادنا أي إيمانك لغو فسري إسلام كان وحا لغو فسري أركان الإسلام كي شنطة هاي وأعمال الجوارح ظاهر كهي موقدي بل لغو فسري حديث كجبريل حديث كان إيمان كيبا أعماشي جوارح دي إسلام كحديث كهورا لغو فسرا كان إيمانك لغو فسري culimadu markay kulminayaan labada xadiis waxay tilmaameen oo yiraahdeen labada eray al-islaam wal iimaan idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a labadaasi haday kulmaan way kala tagaan macnaha way kala tagaan muraadkeedu waxa weeyi iimaankuna acmaashi iyo i'tiqaadkii baatinku ku dhacay islaamkuna acmaashi jawaarixda daahirka ahayd waana sida xadiidka jibriil ku dhacday marka way kala tagaano midna acmaashan muuqato ku dhaca midna amalka baatinka ee qarsoon iyo i'tiqaadka qalbiga marka laakiin ay kala tagaan ee ama iimaan gaarkiisa loo sheego ama islaamka gaarkiisa loo sheego way kulmaano labada mid walba ka kalena uu soo hoos galaa sidaa darteed ayaa imika ilan iimaan kaliya la sheegay islaamnimadiina waa soo hoos galaysaa marka iimaankiina waa ku jira meesha marka mar hadii lagu fasiray acmaashii jawaarixda daahirka ahayd iimaanka amalkii baatinka ahaa ee qarsoonaa iyo i'tiqaadaadkii kalena waa soo galayaan marka qaacidadaas ayuun baad xasuusnaanaysaa ah idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a alfaad badan baana sidaas oo kala ah waxa uu diiday afarta uu diiday waa afar nooc oo weelka kamid ah alxantam abu hurayra kala waxa oranaya sida xaashiyada shanawaaniga hoose ku qoran aljiraaru alkhudr jalxadaha cagaaran ama doogada ah marka midabkay doonaan ha yeeshaan jalxadu waa noocun de weelkii ay cabitaanada ku shuban jireen kamid ah ad-dubana waa geed dhulka ka soo baxa oo marka la dalooliyo inta la xordo oo waxa guntiisa ku jira lagala soo baxo dabadeed weel laga sameeyo weelka ubada oo kala kamida oo marka caanaha iyo subaga iyo xalba ilaa hadda waa la adeegsadaa bocorna waa la yiraahdaa xaga koonfurta oo kale eray bixintiisa bocorka ad-dubba ubana waa la yiraahdaa xagan galbeedka marka ala kullin waa noocun weelka kamida ay adeegsan jireen oo nabaadka marka ay soo goostaan ee gudaha waxa ku jira ay kala baxaan ayaa weel laga sameyn jiray wax lagu shubto naqiirkuna waa weel laga qoro geetimireedka jiridiisa oo isagana wax lagu shubto muzaffadkuna waa weelkii oo daamur dusha lagaga dahaaday ama laga mariyay
haddaba nahyigu yacni waxa weeye dee kuma dhacayo caynta weelkan oo jalxadan iyo ubadan iyo weelkan laga qoray daatadooda uga durka ma aha laakiin can ilxantami ay can ilintibaadi fi hadihi alawaani aw alawciya waa in sharaabkii lagu dhigto oo lagu kaydsado oo lagu shubto weelasha noocana ayaa la diiday cilatu nahyina waxay ahayd surcatu liskaar yacni doorsoonka inuu sharaabkani doorsoomo oo dabeed lagu sikhraamo ayaa u soo degdegi jirtay oo weelashani khusuusiyada ama sifaadka ay leeyihiin bay ka mid ahayd wixii lagu dhigo inuu doorsoonku u soo degdego dabeed cabbitaankii uu noqdo wax lagu sikhraamo oo dee lagu waxa weeyaan miyir doorsoomo ama sidii khamradoo kale uu noqdo marka nahyigu halka uu ku dhacayaa waa in weelkan wax lagu dhigto oo lagu kaydsado maadaama uu soo degdegayo waxa weeyaan doorsoonka iyo intuu khamiiro oo isbedelo inuu noqonayo wax lagu sikhraamo xadiidkan laakiin waxaa nasakhay xadiidka burayde ee imaamu muslim oo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kuntu nahaytukum can ilintibaadi ila fi lasqiyati fantabiduu fi kulli wicaa'in walaa tashrabuu muskira rasuulku waxau yihi hore waxaan idinku diiday inaad waxa weeyaan wax ku shubataan oo cabbitaanka ku kaydsataan qarbadada ama sibraarka oo kale mooyaane oo qarbadka ama sibraarku saan buu ka samaysan yahay doorsoonna ma lahayn markaa sibraarada ama qarbadada inaad wax ku kaydsataan ama cabbitaanka ku shubataan mooyaane wax kale hore waan idinku diiday ee fantabiduu fii kulli wicaa'in naskigii waa kan imika weel kasta wax ku shubta oo ku kaydsada walaa tashrabuu muskira wax laakiin maandooriye maanka bedelaya ha cabbina marka weelka markii dambe waa la wada fasaxay bishardi allaa yuskir inaanu wax sikhraamin uunoo dee sharaabkii aanu doorsoomin waayo cilladda markii horeba loo diidaya cilatul iskaar bay ahayd marka iyadoo iskaarkaa iyo sikhraamiddaa uun layska ilaalinayo waa la baneeyey markii dambe cumuuman weelkii iyo kuwan la nahiyeyba ixfaduuhunna wa akhbiruu bihinna man waraa'akum waxaa laga qaadanayaa dee addacwatu ila allah haddaad wax soo faa'iido oo meel intaad timaado cilmi aad ka xambaarta ha la fadhiisane dee dadka la dhexgal oo ku wacyigeli oo ku waani markaa cilmiga in lala socdo bulshada lala dhex galo wanaagga lagu faro xumaha lagaga reebo xuduudda sharciga loogu qeexo xaqa loogu caddeeyo waa hadafka iyo ujeeddooyinka wax loo baranayo oo alcilmu waalcamalu waddacwatu ilayh baro ku dhaqan dadkana gaadhsii haddii kale dee waad ku dhex qallali cilmigiina nafci iyo barako ka heli maysid haddii waxba ku dhaafi waayaan can abi mascuudin alansaari albadri waxaa laga wariyey can inabiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yidhi idaa anfaqa marka uu bixiye alrajulu ninku calaa ahlihi reerkiisa marka uu wax ku bixiye uu masruufo ee biilkii uu ku bixiyo yaxtasibuhaa xaal uu nafaqadaa iyo bixintaa ajarkeeda ilaahay agtiisa ka xisaabsanayo oo macnaha niyo wanaagsan oo ilaahay dartii uu ku nafaqaynayo fahya nafaqadaa uu reerkiisa siinayaa lahu isaga sadaqatun sadaqay u tahay yacni diinteenna qiimaha iyo wanaagga ay leedahay bay ka mid tahay adoo xilkaagii gudanaya oo ooridaadii nafaqaynaya ayaa hadday niyo wanaagsani la socoto ajar iyo abaal ilaahay agtiisa aad ka helaysaa marka mar walba waajib bay kugu tahay dee xilkaaga inaad gudatood reerkaaga masruufto laakiin masruufkaad bixinaysay ayaa ajar iyo abaal dheeraada aad ka helaysaa niyo wanaagsani marka ay raacdo oo yaxtasibuhaa dee waxa weeyaan yuriidu biha wajha allaahi waxdah isagoo ilaahay wejigiisa iyo ridihiisa ku raadinaya oo ku doonaya ayuu reerkiisii nafaqaynayaa dee waxba ku yeeli maysa adoo waajibkaagii ku saaraa gudanaya niyo wanaagsanna inay la socoto si aad ajarkaa iyo abaalkaa u hesho ehelkuna waa caam oo ooridaadii baa soo gelaysa ubadkaagii baa soo gelaya waalidkaagii baa soo gelaya xigtadaadii kale kugu dhoweyd ee nafaqadooda lagaa rabay ayaa soo gelaysa
kulligood cid alla cidaad nafaqaynayso haddaad niyo wanaagsan wax ku siiso waxa weeyaan dee ajarkaa iyo abaalkaa ayaad helaysaa oo nin wax sadaqadaysanayo oo kalaa tahay sadaqaad bixinaya adoo reerkaagii masruufanaya البخاري قال بخاري وحويدي قال رسول الله رسولك الله وحيدي صلى الله عليه وسلم من أحد يريد الله الله أولدون به سق خيرا خير أولدون يفقهه وفهم سيا في الدين تأي فهم سيا وإنما العلم علم وحو هذا بالتعلم برشد بوكو هذا dee in la barto oo loo banbaxo ayuunbuu cilmigu ku yimaadaa ee dee kugu soo degi maayo un adoon u dadaalin siiqada noocan oo kale ah bukhaari ama musanifiintu markay yidhaahdaan un qaala rasuulullah iyagoon sanadba sheegin xadiidkaa waxaa la yidhaha waa mucallaq mucallaqna waxaa loo yidhi xadiidku waxa uu leeyahay sanad xidhiidhsan rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofkii ka maqlay ilaa ka u dambeeya ee sheekha ama musanifka waa sanad xidhiidhsan ilaa rasuulillaah oo can fulaan hebel hebel wuxuu ka wariyey sal allahu alay caninnabiyi la gaadhaya waana khusuusiyaadka ummaddan ilaahay ku gaar yeelay diinteeda lagu daryeelay arrinka isnaadku ee umamkii hore aanay lahayn ee diintoodu ka dayacantay ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ابن المبارك بهابا في اليواكلها دان إسناد شرنا ننكي دونا وحو دونو أدن لها وحس حق إيا باطلك إيا وحس سغن إيا وحن سغنين لقوك لسار إيا سندك مركز رقع أحواشو ذا اللي إيا هبل باوري ما حالو ما كذاب با الصدوق با ما ثقة ثبت با هل كوكا جيرا من متهم با marka xadiidka sanadka silsilada rag ee taxan ila rasuulka ayaa de xadiidka nabiga soo warinaya marka taasa saxiix iyo saqiimka lagu kala saaraya hadaba musannifku marka uu sanadkii oo dhan intuu jaru gooyo qaala rasuulullaahi uu ka bilaabo ayaa la yiraahdaa mucallaqna waxa loo yiri sidii wax soo laalaadu noqonaya oo de asaaniidii taxnayd ilaa laga gaadhay rasuulka ayaa hoosta laga soo jaray oo wax xagga sare ka soo laalaado oo kale buu noqonayaa xadiidkii waxa kale oo mucallaqa suwarkiisa kamida inuu sanadka oo dhan jaro saxaabiga mooyaane oo saxaabigii nabiga ka warinayay mooyaane intii kale oo dhan buu goynayaa saxaabigu baa la sheegaya marka waa mucallaq marka mucallaqaadka bukhaari waxa la yiraahdaa waa saxiix oo يعني حديثك وهل كان كتعليقيا ميل كلون بو كخيريا اسغو موصول اه ومعلقات كبخاري مسلم بخاري ay ku badan yihiin oo kun iyo dheeraad ay culimadu ku sheegaan laakiin intooda badan meel marka uu tacliiqa ku sheegay isagoo mucallaqa haddana meel kaloon buu isagoo mawsuul ah saxiixiisa uu ku soo saara ama ku soo arooriya imika xadiidkan qadarka uu mucallaqa uga jeedo man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din isagoo mawsuul oo xiriirsan oo sanadkiisa oo dhan uu kaamil yahay uu Bukhari ku jira laakiin wa inma al-ilmu bit-ta'allum qadarkaas ayaa mucallaq ah isagana duruq kale ayuu isagoo mawsuul oo xiriirsan oo sanadkiisu dhameystiran yahay waxa weeyaan uu ku soo arooray ibn abi aasim iyo tabaraani ba way soo saareen isagoo xadiidkaasi musnad oo sanadkiisu uu dhameystiran yahay oo mawsuul ah يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه لفظ قاسي كسو ساري مركا من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما العلم بالتعلم حديث كاس وحلقا قادنا إياه إن روح الله خيري وناق لدمعه ودين تفهم سينيه هل كان وحا مهم لما أرن يعلمه الدين دين تو براه waayo in badan oo baratay ayaa diintii kaba baydhay on shaqaba ku lahayd laakiin waxa la yiri yufaqihu ruuxu mar haduu fiqi iyo faham yeeshana de amalkii iyo cabsidiina taas ay ka dhalanaysaa marka uu bara lama orane uu fahamsiiyaa waayo muhiimku waa inaad fahamto cilmiga walow intaad haysaa haba koobnaatee walidaalika nimanka khawaarijta la yiraahdo ee dhiiga muslimiinta banaysta waxyaabaha lagu canaantay lagu ceebeeyay rasuulkuna uu tilmaamay fiqi la'aan baa kamid ahoo
iyagoo quraanka inaga badsado oo qiyaamkiiyo salaada inaga badsada ayaa laa yujaawisu taraaqiihim kalxamaha ama dhuunta aan u dhaafayno yakhrujuuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min arramiya ayaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxay diinta uga dhex tafayaan ama uga boodayaan sida leebku ugaadha lagu gano uu uga dhex tafo yacni surcada iyo degdega leebka ugaadhii lagu ganay dhinaca uga tafay markiibay ka dhex booday sidaasoo kale diinta uga dhex boodayaan iyagoo akhriyaya oo tukanaya oo cibaadaysanaya oo dadaal badan marka waxa looga yimid waa min cadami alfiqhi fi ddiin fahm la'aan taana dee waaqiceenaa baynu ka aragnaayo qur-aanka waa kuwa iyagoo dudubinaya oo kaa badinaya ayay masaajidada dhexdooda iyo hortoodaba dadka ku laynayaan hadday fahmaanna sidaa may sameeyeen ee lafdi mujarad oo fiqi aanu la socon ayuunbay waxa weeyaan dul cararayaan oo ay dudubinayaan wa inama alcilmu bitacallumi waxaa la yidhaha sarta tafacul waxyaabaha laga faa'iidaysto waxaa ka mid a nooc takallufa isku dhibid inaad wixii isku dhibtood mashaqo iyo juhdi aad ku bixiso marka cilmi wuxuu ku xasilaa uun bitacallum barasho laysku dhibayo laysku kalifayo waayo dee yaxya ibnu kaiirba siduu lahaa sida imaamu muslim muqadimadiisa uu ku soo saaray laa yunaalu lcilmu biraaxati ljasadi waxa weeyi dee cilmiga raaxada jidhka laguma gaadho oo qadaadka adoo u jiifa cilmi kuu iman maayo isagoo socda rafaad baa loo galaa saqda dhexaa loo gudaa subaxda horaa loo kallahaa habeenkii baa loo socdaa masaafooyin dhaadheer baa dee cilmiga loo maraa oo dee raaxo kuugu iman maayo waxaa kaloo laga qaadanayaa dee laabudda min atalaqi in ahlulcilmiga ehelka waa afkooda lagala kulmo oo cilmiga ehelkiisa loo doonto oo laga raadsado البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة البخاري بخاري قال وحوري قال رسول الله رسولك الله وحوري صلى الله عليه وسلم من سلك كان هو معلقي هرين شيغنا وكلو ده مصنف كي قال رسول الله وركيد اسانيدي او دنبا وتوري وتعليق لكن waxaan yiri muallaqaadka bukhari waxay saxiix de ku yihiin hadduu halkan ku tacliiqiyo meel kale uu ku xiriirinayaa isagoo mawsuula oo saxiix ku soo arooraya inta badan sida qaalibka ah rasuulku waxa uu yiri man salaka ruuxa mara tariiqan wadadoo yatlubu ku doonayo bihi tariiqa ilman ilmi uu ku doonayo sahal Allah ilaahi wuxuu ugu fudaydiyaa lahu isaga bihi tariiqa ilmiga u maray ayaa riwaayadka qaar kood ku soo darayaan laakiin waxa weeyaan imika inooguma taala halkan bihi lahu من سلك روح مر طريقا وضى يطلب كضلبيا أما كدون دون به طريق علما علمي سهل الله وحوق سهلا له يسقى معناها طريقة وعلمك أمري سبب كيس وحوق سهلا طريقا سو إلى الجنة جنة وكقاريو معناها من أقرب الطرق إلى الجنة ودوين كوجود ويتشن لجو قارو وحكم إذا طريقة علمك الله مره طريقaasi ama xisi ha noqdo oo wadada aad u kalaha seed u caraabayseed u guurayna seed u sii socoteed ka soo socota cilmiga waa dariiq xisi ah oo maxsuus oo la arkayo la taaban karo oo aad cilmigii u sii marasood u soo marayso ka waa noqon karaa oo jannaad ku galaysa dariiqa sababtiisa dariiq jannaad lagu sahlaya ku macnawiyana waa noqon karaa oo adigoon wada la arkayaba hayn dee wasiilooyin kale hadaad ugu dadaasho jamcigii cilmiga oo maktabadii intaad u gasho kitaabka uga dhaweeyo aad waxa weeyaan baxsido ood baadhbaadho ood kan marto ood kan kala doonto oo aad adigoon socodba ku jirin dee aad dariiqooyinkii cilmiga loogu dadaalaya aad ugu dadaasho ama imika dee wasaa'ilkan casriga ah ama alwasaa'il alcasriya imika wadooyinkan dee casrigan cilmiga lagu xasiliyo ee waxa weeyaan bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi xilli iyo xaram meel walba caalimkii joogay laga yaabo hortaadan moobilkaagan inaad ka hesho iyada lafteedu waa nooc ka mid ah dee duruqdii cilmiga aad ku dalbaysay oo dariiq janno lagugu sahlayo marka ama wada muuqato aad socoto aad haysid ama wada macnawi oo qarsoon oo inaad dadaalayso aad wasiilo kasta ku xasilinayso ha noqdo labada ku doono سبب الله سبب تاد علم أمرته حسية كانت أو معنوية وحلقوا سهل يا أديك أنا السبب تاد جنكو قاري لهيد واسكول كده وحي الضلبتيت كده دا شيء
camal iyo cibaado iyo cabsi ay ku dhaxalsiiyaan ee aanad ka dhaqaaqin can mucaawiyata mucaawiya waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi samictu nabiya nebiga ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam oo halkan imika dee saxaabigii oo keliya unbaa la sheegay can mucaawiyata qaala samictu nabiya marka maxaa mucallaq loo odhan waaye kan kitaabka o dhanba maa mucallaq la yidhahdo raawigii unbaa la sheegayaa labadii xadiida hore un baynu mucallaq nidhi limaada saale axsanta kan lama jarine sheekhan unbaa dee soo gaabsaday waa sidaa ilan sanadkii hore wuu jaray musanifku laakiin kani ku la gooye maahee waa ku la soo gaabsaday waa ku jira asalka can mucaawiyata waxaa laga wariyey qaala inuu yihi samictu nabiya nabiga ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaal uu leeyahay man axadka yurid illaahu alla uu la doono bihi isaga khayran khayr yufaqihu wuxuu fahamsiinayaa fi ddiini diinta ayuu fahamsiinayaa wa inamaa ana qaasimun qadarkaa hore uu ina soo maray wuxuu u soo celiyey intan dambaa xadiidka ku cusub wuxuu rasuulku yidhi wa inamaa ana anigu qaasimun qaybiye uun baan ahay oo waxyigaa laygu soo dejiyaan idiin qaybinayaa wallaahu allana yucطii isagaa bixiya waxaan idiin qaybiyey fahamkeeda iyo garashadeeda ilaah baa bixiya oo dee waxa weeyaan nin meesha fadhiya waxa ka fiqi iyo faham badanaya ku aan goobjoogba ahayn oo la gaadhsiiyey uun faruba muballaqin awcaa min saamicin waayo waa deeq alloo dadka ku kala badan oonay ku sinayn walan tazaala ka zuuli maysa haadihi tani alummatu ee ummadii qaa'imatan mid ku taagan calaa amri illaahi ilaahay amarkiisa mid ku taagan ka zuuli mayse weligeed way ku taagnaan marka lan tazaala waa istimraariyo yacni sidaasay ahaanaysaa waxaana la yidhaha wanafyu nafyi ihbaatun oo lan oo naafiye ah iyo ficilkan tazaalu oo macnihiisu nafyi ah ilan wuu zuulay waa wax la diiday labadaa nafyi markay isgalaan macno ihbaat bay keenayaan oo macnaha ummaddu sidan ay ku sugnaanaysaa weeyaan ka zuuli mayso macnaheedu waa ihbaat oo sidan ay ku sugnaanaysaa ilaa arrinkani imanayo walan tazaala ka zuuli maysa haadihi tani alummatu ee ummadii qaa'imatan mid ku taagan calaa amri illaahi ilaahay amarkiisa mid ku taagan ka zuuli mayso oo macnaha waa ku taagnaanaysaa laa yaduruhum xaal aanu dhibayn man khaalafahum cidda khilaaftaa xataa yaatiya ilaa uu ka imanaya amrullah ilaahay amarkiisu ilaa uu ka imanayo xadiidkanna qeybtan dambe waxaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ku tilmaamay inuu isagu qaybiye yahay laakiin fahamka iyo garashada cidda bixisaa alla ay tahay oo nebigu waxyigii dadka guud ahaan buu ugu qaybinayaa oo u kala eexan maayo oo waa u wada sheegayaa laakiin dadku hadba qadarka ay ka fahmayaan iyo inta ay ka garanayaan waa ku kala duwan yihiin oo ilaahay baa u qaybiyey nin walba intii loo qaybiyey aanu ka qaatay oo isku faham iyo isku garasho ma aha dadku wamaa kaana cataa'u rabbika maxduura oo dad waxa weeyaan dee aakhirul ummaba ah baa laga yaabaa in looga furo naska waxaan kuwo badan oo ka horreeyaba aan hore loogu furin waayo dee ilaahay deeqdiisa iyo cadiyadiisu mid meel ku xidhan ama la mancinaya ma aha ee waa u furantahay addoommadiisa cid walbana wuxuu doono ayuu ugu deeqayaa haadihi lummatu waxaa looga jeedaa dee bacdu haadihi lumma oo waxaa caddaynaya xadiidkii kale laa tasaalu taa'ifatun min ummatii waa koox ummadayda ka mid a maaha ummadda oo dhan marka waxaa la yidhaha waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuusu waa cumuum khaas looga jeedo oo ummadda inteeda toosan ayaa ku taagnaanaysa amarka alleh dee inta badani waabay ka baydhaysaa laakiin inta yar weeyi intaa yar baa laakiin sideeda hadday diinta ugu sugnaato inay dhinacna uga zuulin ciddii ka baydha ee khilaaftaa waxba yeeli mayso oo haddii waxa weeyaan ummadoo dhammi kaa hor timaado waxba ku yeeli mayso adigu haddaad tahay calaa amri illaah lama eego yaa kula socda laakiin waxaa la eegaa maxaad ku socotaa anta calaa maada laakiin man macaka haddaad eegto dee jamaahiirtu waxay u badan tahay xagga baadida jahanamaana ugu ciidan badan dee rususha iyo ambiyadana atbaacdooda waxaa ka badnaa kuwa ka baydhee ka hor yimid qur-aankana way ku caddahay nusuustaasi akariyada iyadoo la yacni eedaynayo oo aan la ammaanayn wamaa aktaru nnaasi walow xarasta bimu'miniin wain tutic akara man fi lardi yudiluuka can sabiili illaah wamaa yuuminu aktaruhum billaahi ilaa wahum mushrikuun xadiidkii iftiraaqa ee sunanta ku sugnaa xadiidu abi hurayra ayaa ka mid ah yacni umamka qaybsankooda markuu soo tilmaamay yahuud iyo nasaara
ummadda nebi muxamedna 73 fariiqay u kala kici doonaan kullaha fi naari ilaa waaxida dhammaantood waa naarta mid mooyaane waana ta ku sugan wixii nebigu waxa weeyaan dadka ula yimidoo man kaana calaa mithli ma ana calayhi alyawm wa asxaabi marka farabadnaan haddii la eegayo dee xagga baadidaa loo batay hanuunkuna waa yaryahay marka weligaa ha isweydiin xaggee loo badan yahay naartaa loo badan yahay weligaa ha isweydiin yaa ugu atbaac iyo ciidan badan ibliis baa ugu atbaac badane laakiin waxaad isweydiisaa yaa xaqa ku taagan xaqu isagaa sidiisa u badane xaqa lama eego farabadnaan kale looma eego awoodda uu xaqu leeyahay waxa uu ka soo dheeganayaa ama uu ka qaadanayaa dee min alkitaabi wasunna falxaqu kabiirun binafsihi wa kaiirun binafsih xaqu sidiisuu u wen yahay sidiisaanu u fara badan yahe wax kale looma eego laguma miisaamo ama lama barbar dhigo marka weliba khaasatan dee zamankaynu nool lehe fitanka iyo khilaafaadka iyo dhibaatooyinku ay badan yihiin hugunka iyo sawaadulacdamka waxbaha ku dagmine waxaad tidhaa diinta iyo daliilku xagguu iga xiga marka aad daliilka aragto ku dhego ku dhimo lagu weydiin maayo imisaad la socotay ama imisaa kula socday laakiin waxaa dadka la weydiin maadaa ajabtum lmursaliin maxaa rusushii ugu jawaabteen wax farabadnaan la yidhaa laysma weydiinayo qabriga markaad gashana waxaa lagu odhan man rabbuka man nabiyuka wamaa diinuk lagu odhan maayo yaad ahayd iyo yaa kula socday iyo yaad raacsanayd marka laa qabaa'il walaa ururo midna ku anfici maayo laakiin waxaa ku anfici diintii nebi maxamed maxaad kaga sugnayd maxaase aad kaga dhaqantay su-aashaa jawaabteeda diyaarso wax kale waxba ha ku dawaqin hebelada iyo fulaan iyo callaankaad ku daba daashay qabriga markaad gasho mid ku odhanaya in yar aan kuu yaro wehelyeelo oo ha lagu yaro raaciyo miyaad garanaysaa maxaabad markaa ku daali daliilka un doondoon can asmaa waxaa laga wariyey radia allaahu canha rabbi raalliha ka noqday ana nabiya in nabigu sala allahu calayhi wasalam xamid allaha ilaahay inuu mahadiyey oo wa ahnaa calayhi uu ammaanay uma qaala dabeed nebigu waxau yidhi maa min shayin shay ma jiro shaygaoo lam akun aanan hore u ahayn uriituhu mid lay tusiiyey ilaa hadduu jiro se ra'aytuhu waxaan ku arkay shaygaa fii maqaamii makaanu joogsigaygan ama meeshaydan aan taaganahay haadaa ee kani ah xata aljannatu wannaaru jannadiyo naartana dhaho xataa jannadiyo naartana dhaho wax kastoonan hore u arag halkaa aan taaganahaa laygu tusiyey fa uxiya waxaa la ii waxyooday baa rasuulku yidhi ilaya aniga annakum idinka tuftanuuna in laydinku imtixaamayo fii qubuurikum qabriyadiinna dhexdooda midla fitnati lmasiixi addajaal masiixu dajaal fitnadiisa oo kale aw qariiban min fitnati lmasiixi dajaal ama si u dhow fitnada masiixu dajaal oo kale ayaa laydiin imtixaamayaa la adri garan maayo aya daalika yacni madkuurkaa la soo sheegay keebey qaalad ay tidhi asmaau asmi waa shakun min arraawi oo raawiga ka warinayaa yidhi labada midkay asma tidhi kala garan maayo wa fiihi daliilun calaa taxariihim fi naqli ayuu shanawaani odhanayaa xaashiyada hoose waxay taasi daliil u tahay taxariga iyo dadaalkay ku dadaalayaan waxay soo naqlinayaan ay soo rarayaan si aanay ereyna erey ugu bedelin marka markuu kala garan waaye mithla iyo qariiba labadiiba intuu raawigu soo raray buu yidhi labadaa kay tidhina kala garan maayo laakiin labadaa midunbay tidhi almasiix markaa waa mamsuuxul cayn oo labada indhood mid baa masaxanba oo aan waxba ka arkayn ta kalena waa mid ceebaysan oo iin leh saasaa masiix la yidhi addajaalna waa been badane oo kii beenta badnaayee dee ilaahnimadaba sheegtay weeyi yuqaalu maa cilmuka halkanna waxaynu ku boodnay intaynaa odhan laa adri aya daalika qaalat asmaa'u ee waxaa isku xidhan fitnat lmasiixi dajaal iyo mislada iyo qariibada oo waxaa la tusaalaynaya ama loo dhoweynaya waa fitnat lmasiixi dajaal marka milada way isku idaafaysan tahay oo mila fitnati lmasiixi dajaal marka qariibkana waa qariiban min baa la socoto min fitnati lmasiixi dajaal si u dhow imtixaanka masiixu dajaal oo kale marka labadaa kay tidhina kala garan maayu raawigu leeyihi yuqaalu waxaa la odhanayaa waa tafsiirun lilfitna
waxay faahfaahinaysaa imtixaanka uu nebigu sheegay in la imtixaamayo dadka oo qabriga lagu imtixaamayo waa maxay waa mujmalka mufasalkiisii waa kan imtixaankii yuqaalu waxaa lagu odhanayaa maa cilmika ogaalkaagu muxuu yahay bihaada kani aad ogtay arrajuli ee ninka ah bihaada nabiyi haddii la yidhaahdo xaashiyada wuxuu shanawaani odhanayaa dee waxay noqon lahay talqiinu lxuja oo haddii la yidhaha maa cilmuka bihada arasuuli dee huwa rasuulullaahi muxamed unbuu odhan lahay markaa si aan xujada loogu laqimin dee ninkan maxaad ka garanaysaa isagaa ama garan rasuulnimadiisa ama garan waayi sidaasaa arrajul loo cabiray oo risaaladii iyo nubuwadii aan looga cabirin waxaa la odhan maa cilmuka ogaalkaagu muxuu yahay bihaada kani aad ka ogtay arrajuli ee ninka ah rasuulkaa la tilmaamayaa sala allahu calayhi wasalam fa ama almu'minu kii mu'minka ahaa miyaa aw ilmuuqinu ama kii yaqiinsanaa miyaa laa adri garan maayo ayuhumaa labadaa kooda ay qaala tidhi asmaa'u asmiye raawigu wuxuu leeyay waa shakun min arraawi labada kay tidhi kala garan maayee muumin iyo muuqine muuminkii miyaa ama muuqinkii fayaquulu waxau odhanayaa huwa isagu ninkani muxamadun muxamed weeyi rasuulullah rasuulkii rabbi noo soo diray sala allahu calayhi wasalam jaana wuxuu noola yimid bilbayinaati xujooyin iyo aayaad cadcad iyo walhudaa hanuun oo faajabnaahu dabeed waanu ajiibnay oo waa yeelay baaquu noo baaqay watabacnaahu waananu raacnay huwa isagu muxamadun muxamed weeyaan halaaan yaquuluhaa halaaan 3 jeer buu sidaa odhanayaa oo odhanayaa huwa muxamadun fayuqaalu dabeed waxaa lagu odhanayaa nam seexo saalixan xaal aad tahay nin wanaagsan iska seexo qad calimnaa waa ogaanay in kunta ay ina alamra washa'na in arrinkiiyo xaalku yahay kunta inaad ahayd la muuqinan mid yaqiinsan bihi rasuulka nin yaqiinsan inaad ahayd horaanu u ogaanaye seexo adoo saalixa lagu odhanayaa waama almunaafiqu munaafiqii miyaa aw ilmurtaabu ama kii shakisnaa waa uun isku mid oo murtaabku waa munaafiq munaafiquna waa murtaab sida muuminkuwa muuqinu ahaa muuqinkuna mu'min laa adri garan maayo ayaa raawigu yidhi ayu daalika madkuurkaa keebay yacni madkuurku waa labadan ereye munaafiq iyo murtaab marka laa adri garan maayo ayu daalika labadaa keebay qaala tidhi asmaa wa asma kala garan maayee fayaquulu dabeed wuxuu odhanayaa waa munaafiqii ama murtaabkii laa adri anuu garan maayo samictu waxaan maqlay annaasa dadka oo yaquuluuna le shay-a wax leh oo wax ku hadlayo oo faqultu anna waan idhi uun waa dameeridhaan raacday sida laleeyihun baan lahaa aqoon iyo daliil kuma dhisnayn marka munaafiqiina sidaasuu odhanayaa oo riwaayaadka qaarkood fayaquulu haa laa adri afka ayuu kala qaadaya waa af kala qaado dadku waxay lahaayeen unbaan ka daba lahaa waxba ma yaqiinsani garanna maayo xadiidku markaa waxa uu tilmaamayaa dee fitnadii qabriga iyo imtixaankii munkar iyo nakiir iyo su-aalihii la isweydiinayay ee la ysku imtixaamayey oo waxa weeyaan dee qofna waa lagu sugayaa imtixaanka oo dee xaqii waa garanayaa waa mu'minka qofna dee waa ku dhacayaa oo waa kaa rasuulkii aan garanayne afka kala qaadaya haa laa adri odhanaya marka taasi waxay tilmaamaysaa dee qofkii maanta ku toosnaa dariiqa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee raacay ee si dhaba ugu dhaqmay diinta dee waa muuminkaa iyo muuqinkaasoo isagu waxa weeyaan argagixi maayo oo kolba meel isku qaadi maayo isagoo yaqiinsan oo huba ayuu su-aasha ka jawaabayaa oo uu si fiican ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu sugayaa jawaabta xaqa kii kalena dee waa ambanayaa oo meel cidlo ah ayaa u maraya can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyey annahu abi hurayra qaala inuu yihi qultu waxaan idhi yaa rasuula allaahi rasuulkii allow man kumaa ascadu nnaasi dadka ugu mudan bishafaacatika ergadaada iyo shafaacadaada yowma alqiyaamati maalinta qiyaame yaa ugu awleysan oo ugu xaqnimo badan inaad u ergeyso qiyaamaha rasuulkii allow qaala waxau ihi rasuulullaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam laqad danantu alla ilahe waan u maleeyey yaa abaa hurayrata abuu hurayrow anlaa yas'alanii inaanu i weydiinayn can haadaakani alxadiidi ee xadiidka axadun qofka oo awalu kaa horeeya minka adiga marka haddii la nasbiyo anti oo naasibo laga dhigo weeye haddii kale waa mukhafafo oo
ولا رفعنا يا ولقد ظننت وحن ملي الله إليه يا أبا هريرة أبا هريرة ألا يسألني أي أن الأمر والشأن حالك أرنك بإنو يهي لا يسألني إن أنو يويدين عن هذا كني الحديث يا حديثك أحد قفنا إن أنو يويدين قفك أولك والرأي منك أدقى الله إليه وأنفلنا يوهران أمليي حديثك قف أدقى كهرية إن أنو يويدين وما رأيت لأجل ما رأيت waxaan ka arkay darteed baan sida u daniyoon u maleeyay waxaan ka arkay oo min xirsika dadaalkaaga cala alxadiisi xadiidka nabiga aad ku dadaalayso dadaalkan kugu arkay dartii ayaan horaba sida ugu maleeyay sidii un baanay u dhacday rasuulku waxa uu yiri as'adun naasi dadka waxa ugu mudan bi shafaacati shafaacadayda inaan u ergeeyo yawmal qiyaamati maalinta qiyaame من روح قال إراده هو يسقول لا إله إلا معبود بحق بحق لقو عابدا مجر إلا الله ألم ويانا خالصا حال وكبر احتري قولك توحيدك من قلبه حق قلبه سو كبر احتري أو نفسي أما حق النفتيس ورسولك تلمامي صلى الله عليه وسلم روح إرقدا مال انت قيامي إرقدا رسولك وقو حق نمضى بضن وموحد كي رنتها وهي توحيد كبنتا لا إله إلا الله أفكبار كيس لغا يراهدو أن قلبك إيا أورك هو سجرين دي منافقين تبكاوي كو هدلان لكن مؤمنك خالص كأه إريغا وأفك كيري إيا أوركيسو أي وضا السعودان قلبك سبر احتران توحيد كأوغقرة شهادة هذا قيبتي كلنا سوق ليسا ومركا شهادتين كمثل الشيغة كلنا وكل ما أنتم مكلا هدان ولا إله إلا الله محمد رسول الله رسالة دينا ويرعسان تايون مركا روح الشهادتين كاقرة إساقو قلبي سكبر احتري كاسا أغو أوليسا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هل كاوحا لغا قادنا يا لا إله إلا الله شروط دي دا علماء دا أيو تحين إن لغو توسنا دا إني مهم تايو إخلاصكو أغو الرأيو وعلمي إن لو يشا مضمونك يا معناها توحيدكو وكحيقو علم مجمل ولو مفصل بيان جودهان لا إله إلا الله وحي كفر يسي كادونيسو وإلهي كليين عبادة الله برحتراء إيا وحي كودي ديسو وعد كلين عبادة للوذاتية إيا رسالة رسولك صلى الله عليه وسلم إيا متابعة الله قاري إلى رسولك سيد عبادة بقى للوغو قاري إليه مركا لا إله إلا الله مركا إخلاصك إيا شروده هذا كلا الله دم يستره ee madmuunka iyo waxay ku faraysana amal ahaan iyo dhaqan ahaan loola yimaado illa ilaaha illa allah de ay noqoto de miftaax ilkiisi wata waayo wahab ibn munabbih ayaa waxa uu yiri la ilaaha illa allah huwa miftaax jannada laakiin waxa uu yiri ma min miftaahin illa walahu asnaan fa in jiita bi miftaahin lahu asnaan fataha lak wa illa lam yaftah lak wuxuu yiri miftaax ma jiro ilaa ilkuuleeyo wax ku fura mafaatiixda weedinka arkay haduu ilka beelo albaabkii furi maayo marka waxa uu yiri hadaad miftaax ilkala la timaadana wuu ku furi hadaad la iman weydana ku furi maayo waxa uu uga jeedaa laa ilaaha illa allah shuruudeedii wadata hadaad la timaado oo lagu dhaqmay oo laga run sheegay oo qalbiga laga baraxtiray janno waad ku gali hadii kale ku gali maysid waxa kaloo laga qaadanaya xadiidkan de xirsiga iyo dadaalka Abu Hurayra walidaalika ayuu yahay aktharul muqtirin saxaabada xadiidka soo wariyay leeyahay al muqtiruna fi riwayati al athar ka ugu faraha badan leh ee 5,000 xadiid in ka badan rasuulka ka wariyay sallallahu alayhi wa sallam isagoo rafaad iyo tacab iyo juhdi badan u soo maray oo sidoo tilmaamay gaajo darteed ayaa masaajidka iyo albaabka guriga nabiga isku xiga dhexdoodu ku dhici jiray markaas dadku luqunta intii kaga joogsadaan ama ay jiiraan ay oran jireen uu waalayay wuxuu yiri waalina ima hayse gaajaan la suuxan dhulka ugu dhacay marka rafaadka iyo daalka iyo dadaalka badan ayuu de xadiidka nabiga inta leey ku xasiliyay ee darag iyo raaxo iyo fadhi uu qadaadka u jiifo kuma xasilin waxa kaloo laga qaadanayaa lima ra'aytu min hirsika ala alhadithi xadiidka nabiga in xadiid lagu idlaaqa waa lafdi sharci oo rasuulku ku idlaaqo ku magacaabay ee istilaahi ma aha istilaahiga waxa la yiraahdaa mustalaha alayhi ulama eray bixinta culimadu ku heshiiyaan ereyga sidaas la yiraahdaa marka eray bixinta hadalka rasuulka xadiid in la yiraahdo
اصطلاح علماء ما هي ولفظ شرعي ورسولك بحيي على الحديث وكاله ولذلك أي سيدة نصوم الرأي حديث كده لغو إطلاقا وحي مرفوع رسولك الله كريه لي هل كآثارته أي عام كتهي أو مرفوعية موقوف لغو إطلاقه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحل قوري عبد الله بن عمرو بن العاص قال إنه يري سمعت وحان مغلي رسول الله رسولك الله يان مغلي صلى الله عليه وسلم يقول حال أليهي إن الله ألي لا يقبض مقبته العلم علمك مقبته انتزاعا لأجل انتزاع سيبدو سيبا يدرتد أو ينتزعه علمك وكسيبيو من العباد أدوم ذا حقوده يعني إلهي علمك مركا وقاضي أما وقبنا آخر الزمان كما قبطه إن علمدي أو النول وان قلبي قوذي لغسيبو علمك يحنبار سنايه ولكن أي شيء يقبض إلهي وحكو قبطه العلم علمك بقبض العلماء علماء قبشدو كو قبطه أو كو يحنبار سنابه هويده أو آخرتك أو أدونك كتك حتى إذا لم يبقي عالما إلا مركا أنو عالم برهب الله وعلماء أي دماته اتخذ الناس ضدك أي يشان جهالا كوا وحمقرتا رؤوسا مضحي علمي أي كدكتان ومفعول الأول كي ثاني أي تقديم يتأخير باكتشرة والرؤوسا ومفعول ثاني مركا إلا مركان عالم بألا أنو ريبين علماء أي دمادان اتخذ الناس ضدك أي يشان وجوابك جهالا كوا وحمقرتا أي كيشان رؤوسا مضحيو oo loo cumaamado cidaan cilmi balahayn oo dadkii ay wax weeyaan culimo u noqoto oo fasuilu dabeed la wax la weydiiyo kuwa loo cumaamaday iyagoo juhaala oo faaftaw dabeed ay u jawaabaan dadkii bighayri cilmin cilmi la'aan ay ugu jawaabaan oo fadallu dabeed iyagii ay lumaan cilmi la'aanta ku jawaabayay wa adallu dadkiina ay lumiyaan waxa calaamaadka saacada iyo waxyaabaha aakhiru zamaanka dhacaya kamida waxa waxyaabo kamida nabigu halkan ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam oo ilaahay cilmiga ma qabto uunde iyadoo culimadii oo nool oo laabtooda laga siibo laakiin wuxuu ku qabtaa culimadii xambaarsanayd inuu qabto ay iyagu dhintaan marka qabdul ilmi biqabd ulama taana muuqaaladeedii madaahirteeda maanta wax kamida carabiga cajanba weynu haynaa oo culimadu inay hooydaan oo xagga aakhira ay qabtaan way badanto ma yara cilmigiina markastoo iyaga hooyashadooda ay badato cilmigiina de waa sii yaraanaya ilaa cidii xambaarsanayd baa la godgashay wuxuu nabigu tilmaamay marka aan caalimba aanu alla reebin marka idaa lam yubqi iyo yabqa labadaba waa loo xarakeeyey haddii yubqi la yidhaa waa abqaadii rubaacigo caaliman baade ay nasbinaysaa haddii yabqa la yidhaa waa baqiyadii yani laasimka ahaydoo faaciluun bay rafcinaysaa markaa waxay noqon xataa idaa lam yabqa caalimun ilaa markaanu caalimba hadhin lam yubqina aanu reebin waa mutacadi iyo laasim marka waxa dhacaysa de juhaal in madax cilmi laga dhigto oo iyaga wax la weydiiyo tabeed cilmi la'aan intay ku jawaabaan iyana ay halaabaan dadkana ay haleeyaan marka waxyaabaha madaahirta de aakhiru zamaanka dhacaysa weeyi ee wax kamidana imika la arko axyaanan dadaan cilmigii sal iyo raad ku lahayn gaar ahaan weliba baraha bulshada iyo waxyaabaha lagu wada xidhiidhay u badan yihiin wixii la doono dad fatwoonaya inay soo fadhiistaan oo xalaal iyo xaaraantoona aanu kala eegay marka arrimaha noocaasi oo waxyaabaha de aakhiru zamaanka dhacaya nuqsaanta ummadda ku imanaysa iyo dacfiga diinta ku imanayana daliilo ah marka waa in laga digtoonaado qof jaahila de in ra'si cilmi iyo madax cilmi laga dhigto isaga wax la moodo waa in ruuxu sida adduunyadiisaba uu ugu sahan tagayo ee uu raadinayo qofka ugu aqoonta badan ee ugu daacadsan dee diintaaduna yaanay timir xabaaltaal noqone cid walba ha hoos dhigina cidda ehelka waa u doono cidda garanaysa kuna toosan ee daacadda ka ah waayo shaki ma laha haddii waqtiyadii inaga horreeyaba ay jireen dee dad diinta dadka ka luminaya oo jahli ku fatwoonaya maantana inay kasii fara badan tahay kol hadday sidaasi jirto diintaada u sahan tag oo meel walba ha ku tuurin oo ha isdayicin waayo diintu waa wax qiimo badan
maantana waabaynu ognahayo madax iyo mijawadaad iyo waralle nin walba diinta uu ka fadwoodaayo cidiba kama dhowrsato adduunyo markay noqoto guri haddaad dhisanayso injineerka ugu wanaagsan baad maanta oo dhan Hargeysa ka raadinaysa caafimaad iyo dhakhtarnimo haddaad u baahato doctorka ugu wanaagsan waa keebaad odhanaysa bal arrimahaagii adduunyada cid walba uma quudhay sida waad ka fiirsanaysaa laakiin diin markay noqoto la isweydiin maayo nin walba gacanta u gashanaya iyada lafteedu waa un daciifnimada iyo nuqsaanta ummadda ku timid maanta waqtigan aynu nool lahay laakiin diinta ayaa uga habboon oo ka mudan in loo sahan tago iyay ka dhabtaho ku dhaqmaya garasho iyo cilmina u leh yaa si aan garanayn ama haba gartee aan ku toosnayn inaad iska fiirsato waa arrin aad iyo aad muhiim u ah haddii kale aadun bay diintaadu dayacmi cid kale waxba yeeli mayse عن عائشة عائشة وعلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي حاسكي سي أوريدي سي أهيد زوج النبي أوريدي سي أهيد صلى الله عليه وسلم وحلق وريه كانت إنا يهيد عائشة لا تسمع مدان مقلن شيئا شيء أو لا تعرفوا أني قرنين إلا هذين مقاشسه راجعت وكعلين شرتي فيه الشيء ومحاد وجه دابي أورين شرت عدة كم مقاشه حتى تعرفه إلا يقرته أقونسته وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحويلي من حوصب عذب من حوصب روح الله حسابي عذب والعذاب حديث كاسي النبي كوريس إنه رسولك يقول من حوصب روح الله حسابي عذب والعذاب قالت وحيت عائشة فقلت دبيد وحاني أوليس أميان أهين يقول الله ألا مدير عز غالبها وجل ويناي إلهي كير ميان أهين فسوف يحاسب شير دنبال الله حساب دون قفك مؤمن كا حساب تو يصير فضود دبيد وأن نبت قليا حساب فضود بالله حسابنا يا قف مؤمن كدب نواب بدباد يا ميان الله أوران قالت waxay tiri faqala dabeed nabigu wuxuu yiri arrinka isagoo uga jawaabaya Aisha inma dhaliki kaaga la soo sheegay Aisha wa fasawfa yuhasabu hisaban yasiran al-ard wa bandigi kaas xisaab lagu adkeeyay oo lagu baarbaaray maahe waa bandhig walakin hayeshe man ruuxa nuqisha lagu baarbaaray ee lagu adkeeyo al-hisaab xisaabta yahlik وهلاك سميا أما يهلكو وهلاك سميا ومن تادي شرطية لغا ديغو دي جواب بيو باهانتو يهلك مركاوا للريبي من تا موصول هادي لغا ديغانا يهلكو والا اسكر رفعنا يا او جملة خبر كمبتداها يدعي مركا من كوكستو نوقش الحسابة لغو بار حسابتا يهلك وهلاك سميا مركاوا شرطيو أما من قفك نوقشا lagu adkeeyay lagu baadhbaadho al-xisaaba xisaabta yahliku halaag sameeyaa huwa mankaas oo de badbaadi maayo kolba hadii xisaabta lagu adkeeyo marka nuuqishada hadii la yiraahdo laba mafcuul bay qaadanaysay ka hore de waa naa'ibkii al-xisaaba waa kii labaad waxa loo nasbiyay hadiise uu hal mafcuulun qaadanaysay de marka al-xisaaba ilankii hore naa'ib faa'il buu noqono waa mughayir siiqa ficilku الحساب النزع الخافض با مركا لغو نسبيه خافض كي لغا جراي او وحو نقونيا من قفكا نوقشا لغو ادكيه ee lagu baadhbaado الحساب اي في الحساب حسابته الله حسابنا يدخديدا قفكا lagu adkeeyo yahliku de waa halaag sameeya huwa mankaas xadiidkana عائشة waxa iskaal ka galay hadalka uu rasuulku yiri man xusiba udib oo waxay tiri quraankiina wuxuu sheegayaa qofkii in la xisaabinayo xisaab yar adna waxa tiri qofka la xisaabiyo waaba la cadaabay de labadu siday isu waafaqayaan rasuulku waxa uu tilmaamay xadiidkii aayadu inaanay iskhilaafsanayn ay iswaafaqsan yihiin oo fasawfa yuhasabu hisaban yasiran ta waxa looga jeedaa al-ardu wa bandhiguna waxa weey ilaahay adoonkiisa intuu waxa weeyaan keeno maxsharkii oo uu soo dhaweeyo ayaa wuxuu oranayaa adoonkaygiiyow isagoo waliba dadka ka asturaya ilaahay intuu adoonkiisii dambiga galay soo dhaweeyo dadkiina uu ka qariyo isagoo u xil qarinaya ayuu oranayaa hebelow
kaamiyaanad samayn oo kaamiyaanad samayn oo kaamiyaanad samayn markuu wada qirto ee uu siyaa alla ilaahay maanta waad halaagsanto ma badbaadaysid ayaa wuxuu ku odhanayaa rabbi ana satartuha calayka fi dunya wa ana aghfiruha laka alyawm adoon yahow adduunyadiina anaa kugu asturo kugu xilqariyey maantana anaa kuu dhaafayee soco saasuu ku badbaadaya markaa fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran waa bandhigaa lagu qirsiinayo wixii uu galay markuu gartee uu ka garaabana alla wuu dhaafayo ee mid lagu cadaabaya ma aha laakiin ka la isku cadaabaya man xusiba cudib waa mujmalo waa caame tafsiilkiisu waa man nuuqisha alxisaaba yahlik taasaa caddaynaysa oo ka xisaabta lagu cadaabaya kol haddii la xisaabiyo ka cadaab gelaya waa ka xisaabta lagu adkeeyo ee lagu baadhbaadho ee aan waxba loo dhaafin kaa weeyaan marka tafsiilka iyo caddaynta man xusiba cudib muraadkiisu waa man nuuqisha alxisaabu ama alxisaaba yahlik can abi muusa alashcariy abi muusa alashcari waxaa laga wariyey qaale inuu yidhi jaa rajulu nin baa u yimid ila nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam faqaala dabeed wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulkii allow malqitaalu dagaal muxuu yahay fii sabiili illaahi alla jidkiisa loo diriro oo loo dagaalamaa fa ina axadanaa maxaa yeele midkaayo yuqaatilu wuxuu u dagaalamayaa gadaban ay liajli gadabin cadho darteed wa yuqaatilu waxa kaluu u dagaalamayaa xamiyatan qiiro jaahiliya iyo santaag darteed buu u dirirayaa ama u dagaalamayaa farafaca kor buu ugu soo qaaday ilayhi xaggiisa nebigu ra'sahu madaxiisii oo ninkii sidaasuu u daymoodo madaxuu kor ugu soo qaaday wamaa rafaca ayaa raawigu xadiidku leeyahay waa abu muuse wamaa rafaca nebigu kor ugumuu soo qaadin ilayhi xaggiisa ra'sahu madaxiisa ilaa annahu kaana inuu ahaa mooyaane wax kale qaa'iman mid taagan nebigu sala allahu calayhi wasalam madaxuu kor ugu soo qaado dee isagoo fadhiya nin dul taagan sidaasuu eegay abuu muusa wuxuu leeyahy nebigu madaxa kor ugumuu soo qaadin ilaa ninkani inuu dul taagnaa mooye wax kale oo sababtuu madaxa kor ugu qaaday wuu dul taagnaa nebiguna waa fadhiyey faqaala dabeed rasuulku waxa uu ku yidhi man qaatala ruuxa dagaalamo litakuuna si ay u ahaato u dagaalamo kelimatullaahi ilaahay kelimadiisu hiya iyadu alculyaa ta sarraynta badan inay ahaato ruuxa u dagaalamo inay kelimada alle sarrayso fahwa ruuxaasi fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisii isagaa ku sugan oo jihaadkii dhabta ah ku taagan oo mujaahidkii dhabta ahaya hada alxadiid rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la weydiiyey jihaadka dhabtii waxa uu yahay waxaana loo sheegay siyaabo kala duwan oo dadku u diriraan ama dagaalka iyo duulaanka u galaan oo cadho iyo ree hebel iska dhici iyo qiiro jaahili iyo wax la mid ah markaa waxaa la yidhi fii sabiilillaahi jihaadkii waa tee dee rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa almaqsuusu bijawaamici alkelim mid lagu gaar yeelay kelmadaha urursan ee soo koobaya macno iyo hadal ballaadhan oo fara badan oo rasuulka hadalka waa loo soo ururiyey oo erayo iska kooban oon fara badnayn xuruuftoodu ayaa macno ballaadhan uu ku gudan jiray marka halkuu ka odhan lahaa kaa in loo dagaalamaa waa baadil kaa in loo dagaalamaa ma bannaana kaa intuu kala tirin lahaa waa soo koobay oo wuxuu yidhi kelmadda alle inay sarraysa ninka u dagaalamaa isagaa fii sabiilillaahi ah marka waa hadal kooban oo macnihii muraadka ahaana ku dhan yahoon waxba kaga dhinnayn kol haddii kaasi fii sabiilillaahi yahay wax alla waxa ka soo hadhay dee maaha fii sabiilillaahi waa fii sabiili shaytaan ama cadho ha noqoto ama qabiil ha noqoto ama qowmiyad ha noqoto ama dhul ha noqoto waxay doonto ha noqoto ujeedooyin kale haddii niyadaadu noqotoonay fii sabiilillaahi ahayn dee noqon mayso markaa jihaadkii iyo mujaahidkii dhabta ahaa kaasi noqon maayo maantana waxaynu ognahay oo xaqiiqo ah mujaahid iyo shahiid waa ereyada ugu badan ee meelka dhaca badan dhexdooda uu ka dhacay maanta dee waddamada muslimiinta waa idinka arkay carabiya cajamba labadii qori isku qaadaba mid walba waa mujaahid waana shahiid soomaydaan maqal hadda dagaalkii soo kordhay cusboonaadaba waa shahiid waana mujaahid laakiin waxaasoo dhan dee waxa soo afjaray man qaatala litakuuna kalimatullaahi hiya alculyaa fahuwa fii sabiili illaah shahaadaduna wax cid walba lagu tolo ma aha oo la yska siiyo
mujaahidnimaduna wax cid walba ay qaadan karta ma aha waa sharaf iyo darajo sarraysa oo jannooyinka darajoodkooda ugu sarraysa ka mid ah waman yutic illaha waalrasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa shuhaadadu kuwaasay ka mid yihiin muncamu calayhiga iyagana waxaa laga yaabaa mid aan weligiiba fooda dhigin baa la odhanayaa marka la dilo wuu shahiiday calaa maada shahid muxuu ku shahiiday istushhid marka calaa kullin waxa weeyi jihaadka dhabtii waa kaa sideedabana jihaad marka la leeyahay maanta jihaad wuu iska farabato fitankaa farabadane man tujaahid wamataa tujaahid wa fiima tujaahid waa saddex su-aalood oo muhima ruuxu inuu isweydiiyo horta man tujaahid yaad la jihaadaysaa jawaabtu dee waa alkufaar alxarbiyiin hadda gaalo oo dhan maaha kuwa xarbiyiinta ee muxaaribiinta ee islaamka dagaalka kula jira ka maganta kuwa ah ka ballanta lagula jiro loo dhowaan maayo lana taaban maayo bal nebigu wuxuu tilmaamay gaal la dilay oo lagu naargelaya ama jannada lagaga qadayo xadiidkii nebigu wuxuu aha sala allahu calayhi wasalam man qatala mucaahidan lam yarax raayixata aljanna gaal ballan kula jiray dadka muslimiinta oo cahdi la siiyey ila ninkii waa isdhiganaya waa aaminayaaye qofka ballantii intuu kaga baxo qoorta ka gooyaa jannada ma uriyaa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam waa gaal laakiin ballan baa lagula jiray talow maxaad u malayn kuwa maanta muwaxidiinta qoorta ka guraya gaalkii haddii cuquubadaa lagu mutaysanayo muwaxidiinta iyo muuminiinta dhiigooda kuwa ku maydhanaya maxaad u malaynaysa ee weliba laga yaabo inay jihaad ku sheegaan iyo shahiid marka horta man tujaahid waa alkaafiru alxarbi gaal walba maahay waa ka xarbiga kugula jira ilaan gaal walba gaalnimadiisu looma dilo mid baa kula joogo inaad taabataa ay xaaraan tahay dhiiggiisa iyo naftiisa iyo maalkiisaba oonad u dhowaanay marka mantii waa kaa muslim dee laguma jihaado halkaa maxaa ka baxay muslim muwaxida laguma jihaado muslimiinta maantuna way isku soo tukadaan halkanuu kani ka aadaamayaa kana halkan uu ka aadaamaya marka la isku soo tukadana waa allahu akbar waa la isku bilaabaya dee waa fasaad iyo fitan halkuu jihaadku jooga ma muslim baa muslim ku jihaada oo ku shahiidaya marka man tujaahid waa gaalada wamataa tujaahid waa markaad awood iyo itaaliya shuruudii jihaadku u dhammaystirmo waayo waajibaadka shariicada dee towxiidka marka laga yimaado salaad baa u weynoo yani waxay ku xidhan tahay istidaaca iyo inaad karayso oo haddaanad karayn kolba sidaad u kartuun baad u samaynaysaa xadiidkii cimraan ibnu xuseen waa garanaysaan salli qaa'iman fain lam tastadic faqaacidan fain lam tastadic facalaa janbin jazaakum allahu khayran yacni sara joog ku tuko haddaad karayso haddaad kari weydo fadhi haddii kale dhinacada u jee facalaa janbin baaraka allahu fiikum marka macnaha dee laa waajiba maca alcajsi kolba wixii aad karasaa la sameeyaa soo maaha marka haddii salaaddii sidaa lagu leeyahay salaadaabay ilin jihaadka ka weyn oo ka sarrayso towxiidkunbaa ka horeeye jihaadkiina war horta ma karaysaa oo awood ma u leedahay maaha un fara fiiqfiiq dhagaxna ha noqdee wuxuun xagga gaalada ku tuur ma aha sida dadka maanta ismaqiiqeed dee jar iska tuuraya nin aan iyadoon laysba arag fariin loo soo dirayo halkiisa uugu imanaya saaruukh oo isaguna laga yaabo inaanu aakay ama qori ama baastoolad u sito ayaa ku odhanaya gaaladaasaan ku duulayaayo meel heblaayaan xoraynaya maxaad xorayn isba soo gaari maysaanba gaalkii halkaagay fariintu kuugu imanaysa marka waxaa ka horeeya ma haddee jihaadkii inaynu dadka ka zaahidinanoo laleeyahay lama geli karo jihaadku waa xaq mana dhacayo ilaa qiyaamaha oo aljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama laakiin dee u diyaargarow ilaahay wuxuu yihi waaciduu lahum ma statactum min quwa wa min ribaati alkhayl turhibuuna bihi caduwa allahi wa caduwakum waxaa la yidhi u diyaarsada wax alla waxaad awood iyo cudud aad kartaan gaalada markaad la dagaalamaysaan diyaargarowgii deemee gaalkii baabad gacanta hoos haysataa ood leedahay qorigaa isiiye ma waxay kula tahay inuu kuu soo diri qori aad isaga kaga adkaato kuu beri hore ka baxay ee aan waxba yeelayn isaga ayuu kuu soo tuuraya markaasaad leedahay haddana gaalkii baan ku jihaadaya horta u diyaargarow marka horta waa in la awoodayo oo awooddu ay noqoto macnawiyan wa maadiyan macnawiyan caqiid ahaan ummaddu waa inay u toosanto u diyaargarowdo oo ummadan towxiidka ku midaysnayn gaal iska celin maysa iyaga isku soo noqonaya caqiida lagu dagaalamaa caqiida saxiixa maadiyanna waa in loo diyaargaroobo ciidan ahaan iyo cudud ahaan waxaad wax isaga celin karto shardi maaha inay awooddu sinnaato oo waa laga awood badan karaa
oo waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam de macrakadii badar ba meel kale ba inta ana tagin de tira ahaan iyo zaanad ahaan waa kala sareeyeen oo ma isnayn laakiin maxaa isku dhawaa de halkan ninka ka dagaalamayo unba halkan ka soo jeeday B52 iyo waxan balaayadan ay sheegayaan de ma jirin midda kale faraska halkan ka soo jeedo unba halkan ka soo jeeda haba kala badnaadaan waranka halkan laga tuurayo unba de halkan laga soo marka hubkii iyo dadkii waa wax iska agdhow haba la kala fara badnaado marka imikana waxa loo jeedaa war haba laga fara badnaado ciidan iyo cududba laakiin ugu yaraan wax ku dhadhow oo rag kale hortagi karto de waa inaad haysato Soomaa hadii kale cagta inta lagu mariyo unba dad nabad qabana laga yaabo inaad dab sudhood soo geliso waayeen fara badan waxa dhacda inta wax lagu soo yara tuuro gaalada oo laga soo yaaco ayaa wadamo dhan oo nabad aha cagta la mariyaa Soomaa wuxuu soo kordhiyay wadankii faruu ka baxay ummadiina ay iyo kaymaha ay gashay wala baabay waxa ka fiicnayd in ummadu ay diin ahaan iyo iimaan ahaan iyo ciidan ahaan iyo cudud ahaan ba ay u dhisanto imika maanta waxa la doonayaa waa diyaar garow dawladda iyo shacabka ummadda islaamku iyagoo jihaadka ku fakaraya inay wax samaystaan inay diyaar garoobaan ciidan ahaan iyo cudud ahaanba waa waajibka laga rabo maanta de hadana diyaar garoobinba yaa jihaad ku qaadi sida maanta aynu arkan u badhays marka horta mataadi waa marka la awoodo salaad walba goortii la jooga la tukada Soomaa salaad walba xilligeeda la tukada Soomaa jihaadka xilligiisa la qaado waa marka awood u leedahay ma aha iska dhaqaaq iyo ismiidaam marka man tujahid de waxa weeyaan waa gaalka wamata tujahidna waxa weeyaan waa xilliga awooda iyo waxa weeyaan de aad leedahay wa fiimana wa fi sabilillah ilaahi jidkiisa oo xataa adoo awoodii ku dhameystiran tahay haday niyadii ka xumaato noqon maysid fi sabilillah ee wax kala noqon qof wax kala u dagaalamaya ayaad noqon marka ilaahay dartii marka dagaalkaagu uu noqonayo waa markaad u dagaalamayso litakuuna kalimatullaahi hiya al-ulya wax kala hadaad u dagaalamayso waxbaha ku soo habsaami jihaad iyo shahaado shaqo kuma lihid inaad sheegatana ku heli maysid wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam